Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan bahda ku xiran janaalka ogaalka xogaha kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta waxaan diiradda ku saari doonaa jasiiradda ugu yar ee adduunka meel u dhaxaysa Mareykanka iyo Kanada waxaa ku yaala jasiiradda ugu yar ee adduunka ee la degan yahay. Jasiiraddan ayaa waxaa milkiyadeeda iska leh qoys iibsaday kontomeyadii qarnigii hore. Jasiiraddan ayaa waxay ka kooban tahay guri iyo 2 geed oo keliya. Xilliyadii dambe waxay isku beddeshay goob dadka dalxiiska ah ay booqdaan, waxaana loo yaqaanaa Jasiiradda Qolka. Jasiiraddan ayaa bedka ay ku fadhidaa uu gaarsiisan yahay 3,300 oo fiid oo iskuweer ah, halka 310 mitir oo iskuweer ah. Arrintaas oo ka dhigaysa inay tahay jasiiradda ugu yar ee adduunka ee la degan yahay. Qoyska Selander ayaa iibsaday jasiiradda oo 10-kii sano ee la soo dhaafay noqotay goob caan ah oo loo dalxiis tago. Jasiiraddan ayaa waxay soo jiidatay aragtida mas'uuliyiinta buugga dhacdooyinka adduunka ee Guinness World Record oo u diiwaangeliyay jasiiradda ugu yar ee adduunka ee la degan yahay. Hore waxaa rikoodhka u haystay jasiiradda ugu yar ee adduunka, jasiiradda loo yaqaan Bitok Rock ee ku taalla meel u dhow xeebaha Seychelles ee dalka Talyaaniga, taas oo jasiiradda qoyska Selander kusoo laabmaysa. Aad baan kaga mahadcelinayaa daawashada fiidiyowan. Fadlan hadduu ku caawiyo like saar, la wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.